السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب بيال ميل والبعض جوكشان نبض إيو عافمات قب أيان إذين رجاننا إذي لهانتين كهور إنتانا بلابن فرقدنا مانتا وقال كداسون قيبتيسا تسالينتا وحان حسوسين إنا هاي لاون سبسكرايب إيا لايك وهاي نوتاي ديرجلين وحان إذين سو قدبنا يا مانتا داوديال حقيقة لو باهي هاي إن آن لايسكا إندترين سي أينو أبدبادينو bulshadeenna biri waa kuwa inagu haagi doona mustaqbalkeena fiican waxaan idinka warrami doonaa nolol luntay balse ay dhiirigelin ay sameysay macallimadii ay soo celisay waxaa maalin hor istaagtay ardaydeedii macallimadda fasalka shanaad waxaana ay ku tiri waan idin jeclahay dhammaantiin marka laga reebo Teddy waa mid ka mid ah ardaydeeda waxa uu yahay mid markasta wasakhaysan dharkiisu ay yihiin kuwa uskag ah jirkiisuna uu yahay mid markasta u baahan qubays heerkiisa waxbarasho aad ayuu u hooseeyaa xaaladdan ay ku aragtay ay ku dabaqday go'aanka nacaybka ah ay ka qadatay waa xaalad isbedel oo uu ku sugnaa sanad dugsiyeedka markaasi lagu jiray waxaa looga baahday macallimadda maalin maalmaha ka mid ah inay dib u eegis ku samayso arday kasta oo ka mid ah ardayda fasalkeeda heerarkiisa waxbarasho sanadihii hore ee tagay waxaase la yaabku ahaa markii ay dib u eegis ku sameynaysay heerarkii waxbarasho ee Teddy macalinkiisa fasalka koowaad ayaa ka qoray Teddy waa inan yar oo hiboolo ah waa xariif aad wax u fahma macalinka fasalka labaad ayaa isna ka qoray Teddy waa arday guuleysta waana mid ay jecel yihiin saaxiibadii laakiin waxa uu ka walwalsan yahay xanuunka kansarka ee hooyadii ku dhacay macalinka fasalka saddexaad ayaa isna ka yiri waxa saameyn weyn ku yeelatay dhimashada hooyadii waxaana dadaalkiisa iyo fahamkiisa iska bedelay wax badan xaaladda guriga uu ka yimidna haddii aan wax laga bedelin waa ay ka sii daraysaa xaaladiisu macalinkiisii fasalka afraad ayaa isna ka yiri Teddy waa arday la daala dhacaya nolosha rajo weyn kama qabo waxbarashada lama ciyaaro caruurta waana uu iska seexdaa fasalka inta xiisadu socoto kadib wixii intaasi ka dambeeyay macallimaddu waxa ay ogaatay halka dhibtu kaga timid waxaana ay xishood iyo yaxyax ka dareentay waxyaalihii nacaybka lahaa ay kula kacday waxaase ay u sii cadaatay dhibaatada jidha markii ardaydeedu ay u keeneen dhalashadeeda hadiyado qurux badan oo ay ku soo rideen bokisyo aad u qurux badan marka laga reebo Teddy oo uu hadiyeeyay hadiyad yar oo uu ku soo riday kortoon yaraha cunooyinka fudud lagu qaato aad ayay macallimadii dareen ugu yeelatay hadiyadiisa waxaana ay ahaayeen ardayda fasalku kuwa aad ugu qosla Teddy kortoonka uu keenay waxa gudaha ugu jiray tusbax ka samaysan kuula xoogaa la qurxiyay iyo barfuun in yar oo cadar ah ay ku jidho markii macallimadiisu ay furtay hadiyadiisa soo saartay waxaa niyad jab ku sii noqday qosolka ardayda oo la sarakacay qosol xad dhaaf ah balse macallimadda oo u warhaysay xaaladiisa dhabta ayaa u muujisay dareen ka duwan kan uu ka arkay ardayda niyad u dhis iyo kalsooni ay siinayso daraadeed ayay u xiratay tusbixii waxaana ay isku buufisay xogay barfuun ah maalinkaasi xaafadda dib uguma laaban ilmahani waxa uu sugay waqti badan si uu ula kulmo macallimadda markii uu arkay ayuu ku yiri udgoonka ka soo uraya maanta waa isla kii ka soo uri jiray hooyaday ya Allah afka markii uu hadalkiisa ka soo dhamaaday waxa uu hin la dhacday macallimadii sababtoo ah barfuunka uu Teddy u keenay waa kii ay hooyadii marsan jirtay markii ay nooleed waxaana uu dib u ursaday isla udgoonkii hooyadii uga soo uri jiray maalinkaasi wixii ka dambeeyay macallimadiisu waxa ay siisay danayn gaar ah waxaana maalin batan ka dambaysa u soo noqonaysa farxadiisa waxa kor u soo kacayay moralkiisa waxaana soo fiicnaanayay fahamkiisa dhammaadka sanad dugsiyeedkaasi waxa uu ahaa Teddy mid ka mid ah ardayda kaalmaha u sarreeya ku jira qoraal xasuus reeb ah ayuu ugu qoray Teddy macallimadiisa waxa aad tahay macallimadii ugu fiicneed ee aan arko waligay waxa ay macallimadiisu ugu warcelisay oo adiga kan i baray in aan noqdo macallimad fiican 13 sano kadib waxa ay emailkeeda ka heshay warqad invitation ah oo ku saabsan arday ka qalan jabinaysa kulliyadda caafimaadka si ay uga soo qayb gasho xafladda waxaana hoos kaga saxiixnaa warqadda u soo dhacday wiilkaagii Teddy markaasi ayay aqbashay kana qayb gashay xafladda si ay dareengelin fiican u siiso Teddy mar kale ayay u sii xaratay tusbixii iskuna sii buufisay barfuunkii ma garanaysaa adigu waxa uu noqday Teddy Stoddard waxa uu yahay dhakhtar caan ah oo takhasus sare qaatay waana ninka iska leh Stoddard Center ee lagu dabiibo kansarka badanaa inta aad arkayso arday ay mustaqbalkoodii dumisay dugsiyadeenu ka waransa imisa arday ayaynu qof ahaantiisa u dhaawacnay imisa arday ayayse uga baahan yihiin caawin yar waalidiintiis si uu u noqdo doctor injineer iyo macallin mustaqbalka dhow la wada yaqaan
wallaahi ciyaalkeen waxa ay u baahan yihiin in yar oo garab toosin ah. fadlan saaxiibkayga ama walaashayda daawanaysaay u sheergaree sheekadan hooyo iyo aabbo walba oo aad taqaanid si ay ugu dhug yeeshaan arrinkan muhiimka ah. fadlan ugu dhiirigeli subscribe iyo share deedna ka hel channelkeena taariikho dad nolosha guula ka gaaray iyo warbixino xiiso leh. mahadsan.